Haddaad rabtid wejigaaga inaad qaab dabiici ah u caddaysid, haddaba alaabtan yartaa isticmaal maaskigan yarkaa oo fudud. Wejiga ayuu si degdeg ah u caddaynayaa. Wejigana wuxuu ka dhigayaa liisho iyo qurux. Wejigana daalka iyo jacdadka iyo miida waxaasoo dhan wejiga wuu ka bi'inayaa. Wejigana wuxuu ka dhigayaa weji baby oo dhalaalayo oo liisha oo qurux badan ayuu ka dhigayaa. Wejigana wuu kobcinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. oo walaashiin waa deynaysid 10 kale oo cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. waxaan inii sidaa alaabtan yarta oo weelka noogu jirto. alaabtana waa face mask wejiga la marsanayo waaye. waa face mask yar oo fudud oo simple ah oo wejiga caddaynayo, wejigana qurxinayo, maasha Allah, wejiga ka dhigayo, wejigana kobcinayo, wejigana liisho ka dhigayo, daalka iyo jacdadka iyo miida waxaasoo dhan ka bi'inayo. marka maanta waxaan jeclaystay maaskan inaad ka wada faa'iideysataan walaalahayga oo inay share gareeyo. waa maas yar oo easy waxyaabo gurigeena noo yaalo ayaana ka samaysanay. labada wejina waa la marsan karaa, wejiga saliid leh iyo wejiga oo qalalan, labadaba waa loo isticmaali karaa, wax dhiba ma lahan insha Allah. marka maaskaas samaysanayna walaalahayga kana bogta hadda qaybta dambe videoga waxyaabaha aynu ka samaysanayno iyo sidaan u hagaajisanayno maaskan simple-ka ah walaalahayga. bismillaah, maaskigii wejiga inoo cadeynay ayaan hagaajisanaynaa walaalahayga. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo maaskigeena aan ku qasano. sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay oo aan soo qaatay oo gacanta aan ku hayo waxaa waaye waa yogurt baleenka oo faniilada ah oo fadhiya ayaa u baahan tahay walaalahayga. yogurtkana meelaha dukaamada yararka ayaa ka helaysiin iyo supermarketyada meel walbo ayaana laga helaa walaalahayga. marka yogurt ayaa marka hore u baahan tahay. hal qaando yogurt ayaa waxaan ku shubanay weelkeena yara oo aan maaskiga ku qasinayna alaabta isku la dardarsanayna. sidoo kale waxaa u baahan tahay liin dhanaan, hal jabo liin dhanaan ayaan ku miiranaynaa. yogurtkeeni noogu jiray weelka yarka walaalahayga. yogurtkana xagga wejiga maasha Allah ayuu ka dhigaa, wejigana liisho ka dhigaa, wuu cadeeyaa, wejigana wuu qurxiyaa walaalahayga, wuuna kobciyaa. yogurtkii iyo liin dhanaantii ayaan isku qasayaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinayaa. liin dhanaantana hadda xagga wejiga laguma gaaro, maasha Allah ayay wejiga ka dhigtaa. wejiga mar walba waxay siisaa liin dhanaanta maqaar cusub ay siisaa, wejigana quruxay ka dhigtaa wayna bishaa liin dhanaanta wejiga walaalahayga. liin dhanaantii iyo yogurtka markaan isku soo qasay sidaas ay noogu soo baxeen. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa hal xabo ukuntoo dhammood ahan waa qaybta yelowga ah ayaan ku darsanaynaa. ukunta xabkeeda waa iska reebnay, shahrigii ayaan ku darsanay. ukuntii iyo yogurtkii iyo liin dhanaantii ayaan isku qasaynaa haddana oo si fiican isku dhex gelinaynaa walaalahayga. alaab kale oo yar oo easy ah hadda gadaal baa uga darsanaynaa. alaabtan waxaa waa alaab yar oo simple oo fudud waaye oo wax aad gurigaaga ka heli kartidna waaye, wax ma ah banaanka laga raadinayo. marka ka faa'iideysta walaalahayga. intii waan ku soo qasay walaalahayga. markii aan ku soo qasan hadda sidaas ay noo noqotay alaabteeni. sidoo kale haatan waxaan ku darsanaynaa warango ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. warangadan ayaan ku darsanaynaa. waa warangadii xalwada lagu karinaayay ama konfalo sidii aad u taqaanid. waxayna ka samaysan tahay sabuul, ka samaysan tahay wejigana maasha Allah ayay ka dhigtaa. marka warangadana ku darsanaynaa. hal qaando waranga ayaan ku darsanaa alaabteeni walaalahayga. intaan ayaan haddana isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinaya. alaabteeni markii hore noo qasneed iyo warangadii aan ku darsanay ayaa si fiican isku qasaya walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaya. alaabtan waxaa waaye alaab yar oo cajiib oo simple oo aad iyo aad u fudud waaye. marka ka faa'iideysta, wax ka fiican ma lahan wax adi hubtid inaad wejigaaga ku cadeysatid. alaabtana weytin waxay leedahay inaba caadi ahayn, wejiga dhan waxay ka dhigaysaa dhalo iyo liisho iyo qurux. taas ana ka hubo walaalahayga. markii alaabteeni aan soo qasanay oo si fiican isku soo dhex geliyo hadda sidaas ayay noogu soo baxday maasha Allah. sidaas ayna diyaar noogu tahay, wax kalena kuma dareyno. haatan kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. marka sidee loo isticmaalayaa waaye, marka hore waxaad samaynaysaa wejiga ayaad iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa. markii aad wejiga iska soo dhaqdid oo iska soo nadiifisid kabacdi ayaa alaabtan marsanaysaa wejiga. si fiican ayaa ugu masaajeynaysaa oo u wada gaarsiinaysaa. markii aad marsatid waxaa ku joogaysaa 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo intay alaabtan kugu angagayso. kabacdina waa iska raacinaysaa. maasha Allah ayuu wejiga ku noqonayaa. wiigiina alaabtan waxaa ka isticmaalaysaa oo aad ka marsanaysaa 2 maalin ilaa 3 maalin ayaa wiig kasto alaabtan ka isticmaalaysaa oo ka marsanaysaa. hubaal in lagu dhihi doono maxaa wejigaaga sidaan ugu qurux badan yahay.
waayo alaabtan wejiga ayay qurxinaysaa maasha Allah ayayna ka dhigaysaa wejigana way cadaynaysaa. waa kareem bilaa kharash waay. marka alaabtan ila soo tijaabiyo oo igala faa'iideysta walaalihiga. waxaa waaye waa alaab yar oo natural hade oo dabiici oo dhan walba ka dhameystiran waaye. waxyaabaha dabiiciga in jirka ama wejiga lagu qurxiyana wax uga fiican ma lahan. maaskan wejiga dhan wuxuu ka dhigayaa weji fresh ah oo maasha Allah oo wejigana mar walba wuxuu ka dhigaa weji cusub. wuxuu ka qaadayaa daalka, jacdadka, waxaasoo dhanba wejigu ka qaadayaa. miida xitaa wuu ka bi'inayaa. haddii dhalin aadan lahayn ee wejiga kaa saaran tahay maaskan isticmaal. haddii ay indhaha hoostooda miid ku leedahay ama jacdad uu ka jiro isticmaal. waxaasoo dhan wuu kaa nadiifinayaa. wejigana wuxuu ka dhigaa weji yar oo beebi oo qurux badan oo liisha oo dhalaalaya. sidoo kalena wejiga uu kobcinayaa wuuna bilayaa walaalihiga. waayo ukuna ku darsanay ukuntana wejiga maasha Allah nafaqay siisaa, fitamiin siisaa, baby face na wejiga ka dhigtaa. mar walbana wejiga waxay siisaa maqaar cusub ay siisaa, quruxna way ka dhigtaa. warangadana sidoo kale ayadana wejiga maasha Allah ay ka dhigtaa. waxayna ka samaysan tahay sabuul ama waxay ka samaysan tahay galey sidii loo yaqaano ayay ka samaysan tahay warangada walaalihiga. wejigana waxay siinaysaa weytina way siinaysaa wayna bilaysaa. yoogadkana hadda xagga wejiga ma lagu gaaro. marka alaabo fara badan meesha iskugu tagay ka daba taga alaabtan insha Allah oo ila soo tijaabiyo oo ka faa'iideysta walaalihiga. fiidiyogaana sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga. like ta naga hilmaamin. haddii aad janaalka cusub tahay hadda subscribe saar. haddii aad horey noola joogtana waa ku mahadsan tahay la joogaaga quruxda badan. waxaan kaga tagayaa walaalihiga sidaas nabadgelyo. waa inoo kulantay dambe oo xiiso leh iyo aniga oo inii sido fiidiyo kale cusub walaalihiga.